kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad waxa idin hor fadhiyo waa miskiinka yaray Socdaal Channel halka naga daawanaysan waa YouTube Socdaal Channel soo dhawaada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka xumahay boqolkiiba idinkan raali gelinayaa sida dhuntiin daawadaasheeda joogo dalka iyo dibadda maqnaashii labadan biri oo aan idinka maqnaa wax kale ma ku maqneen xaalada family ay iska jireen sadarteed ayaan maqnaa waxaan idin leeyahay halkan waxa u soo fadhistay wax kale ma ahan waxa u soo fadhistay waxay tahay inaan idin qeexay idin cadeeyo laba qodob labadaas qodob oo ah qodobo muhiim ah taabanayana xaqiiq jirto waxa ay soo gaaray hadalhayn fara badan waxa ay soo gaaray ku tarikiteen fara badan waxa ay soo gaaray dadyo fara badan hadalladooda kuna soo dhacay dhagahayga waxaan rabaa in aan ka hadlo cadeeyane hay'adihii ka hadlayeen runta waxay tahay in aan halkan aan ka sheego halkan waxa u soo fadhiistay laba qodob in aan ka hadlo labada qodob aan u soo fadhiistay waxay tahay qodobka koowaad oo ah heestii aan soo qaaday erayadeeda iyo laxankeeda qofkii lahaa in halkan aan ka shaaciyo marka labaad qodobka labaad oo aan rabo in aan ka hadlo wuxuu yahay heesta aan soo qaaday waxay ahayd hees karbaash ah waxaan ku karbaashay ama aan kula kaftamay nin la yiraahdo Shiina Taaj oo loo yaqaano Shiina Culey waa iska kaftam Shiina Taaj markaan dhahay waa kaftan waxa u soo fariistay laba qodob inaan ka hadlo labada qodob halkan u soo fariistay waxay tahay qodobka koowaad oo ah heestan aan soo qaaday erayadeeda iyo laxankeeda ayaa lahaa waa qodobka koowaad inaan ka hadlo halkan u soo fariistay qodobka labaad oo halkan u soo fariistay waxay tahay heesta aan soo qaaday waxay ahayd hees karbaasha aan ku karbaashay Shiina Culey inaan ka hadlo asbaabta sababta aan macnaha Shiina Culey aan u karbaashay inaan ka hadlo oo aan halkan aan soo fariistay waa midda koowaad qodobka labaad oo aan soo fariistay halkan waxay tahay heesta aan soo qaaday erayadeeda iyo laxankeeda oo noqday waxyaabo ani ugu soo noqnoqdo inaan ka hadlo heestan erayadeeda iyo laxankeeda ayaa lahaa inaan halkan ka cadeeyo waa qodobka labaad oo aan ka hadlaayo waa mahadsantihiin sida quruxda badan leh oo aad macnaha mar walba ay garab taagantihiin waan idinkaga mahadcelinayaa haddii aan ku hormaro qodobka koowaad oo ah karbaashi ama heestii ahayd oo aan ku karbaashay Shiina Culey inaan halkan ka qeexo kana cadeeyo sababta ugu dhalisay inaan Shiina Culey hees karbaash soo qaato macnaha sida la wada ogyahay aniga Socdaal ahaan waxa ka soo baxay kana soo jeeda family ama guri kana soo caanbaxa kana soo shacbaxay halkan heerkan aan taageerana aan ku soo gaaray family guriga ka soo baxay kana soo shacbaxay oo halkan aan ku soo gaaray waa TikTok sida la wada ogyahay markii aan soo qaaday heestii ugu horeysay oo maqaayadada ka dhaxqadeena markii ugu horeysay oo aan soo qaaday heestii maqaayadada ka dhaxqadeena waxaan jeclaystay in aan soo qaado hees karbaash ah intaan soo qaaday kor waan xisaabtamay waxa ila xumaatay inaan qof aan war iyo wacal midna aanan isku heenin oo gurigiisa ka dhax fadhiyo inaan iska karbaasho waxaan sameeyay waraysi sameeyay waxaan la tashtay family-gayga waxaan la tashtay dadkii soo saaray oo heerka soo gaarsiiyay oo ah TikTok waxaan waraystay TikTok kadibna waxa dhacday in la sameeyay codeyntaas oo ah TikTok dhaxdooda in laga sameeyay codeyntii markii la sameeyay 3400 codeysay 3400 cod markii aan fiirshay oo aan arkay 3400 waxay taagan yihiin waa in la kaftantaa Shiina Culey markaas baan intaan fikiray baan dib isugu noqday baa waxaan dhahay ninkan la kaftamo muxume qaab nooc la kaftama markaas baa waxa lagu dhahay waayahan bay waxay isheysteen ee xogaa isku dhadhacsanaayeen nin la yiraahdo King Siki markaas waxaan dib u sii raacay asaga macnaha Shiina Culey dib u raacay marka dib u raacay waxa ogaaday Shiina Culey inuu yahay qof kaftan badan sidaa darteed ku imaada macnaha inaan la kaftamo Shiina Culey ma sha Allah boqolkiiba boqol hada waa nin adag nin caadi maahan ma sha Allah boqolkiiba boqol okay nin walaalkii inuu yahay darteedan ula kaftamay hadii uu sanin walaalkii aysan ahayn ma bala kaftami lahayn ba kalsoonaan iskala ma hadlo nin walaalkii inuu yahay macnaha darteeda ula kaftamay okay waa qodobka koowaad oo Shiina Culey macnaha heestii ahayd Shiina Taaj kala CK adaa shartada rabto rab garanti meesha ka soo gashay waxa rabaa qodobka labaad in halkan aan ka cadeeyo aan ka qeexo qodobka labaad halkan aan ka cadeynayo wuxuu yahay heesta aan soo qaaday erayadeeda iyo laxankeeda ayaa lahaa hees sida la wada ogyahay erayada iyo laxankeeda waxa ku qoran nin la yiraahdo CK YouTuber far badan ka soo hadlay waan arkay dhalinyaro far badan ka filcilishay waa arkay ma sha Allah King CK asaga qudhiisa xitaa reaction uu ka baxshay xalay reaction ku soo baxshay waa daawaday waan arkay aniga ahaan xaqiiqada markii aan ka hadlo King CK waxa uu aqaana boqorka YouTuberada waxa uu aqaana halyeeyga YouTuberada waxaan u aqaana geesiga YouTuberada King CK oo aqaana boqolkiiba boqol waa nin qalbi furan waa nin insaan ah waa nin nasabnimo ay ku jirto boqolkiiba boqol King CK waa nin aan u haayo ixtiraam iyo sharaf iyo cizi inima u haayo waa boqolkiiba boqol King CK boqolkiiba boqol waa ninkii ugu horeeyay oo YouTuber ah oo si qurux badan oo insaannimo ay ku jirto oo walaalnimo ay ku jirto
oo dhiiranan ay ku jirto igaga soo baxshay reactionkii ugu horeeyay oo ahaa maqaayadada ka dhaqadina heestan erayadeeda iyo laxankeeda King CK muusan lahayn waxaa leh Cadaawe Kinyo waana kana garibkayga fadhiyo dhalinyarta xaafadan waxay u yaqaanaan CK anaga dhalinyar xaafadii aan nahay waxaan dhahnaa macnaha Cadaawe caada iyo kaada markii la isku daro anaga dhalinyarta xaafada macnaha hadii aan nahay xaafad ahaantan macnaha hadii aan nahay waxaan dhahnaa anaga CK sasan dhahnaa waana kana garibkayga fadhiyo asaga ii sameeyay erayada iyo laxanka King CK waxba shaqaa kuma laha heesta erayada iyo laxankeeda waxa iska leh waa wiil dhalinyaro ah oo waliba hadda aan meel leer iga jirno garibkayga fadhiyo waa kan qof alaala qofkii heestan dhaliil ku ah oo raba King CK inay amba ku aflagaadeyso amba la dagaalanto qofkii rabo geed iyasan ku soo gamban iyasan mara ku soo gamban heestan erayada iyo laxankeeda waxa iska leh sameeyay wiilkan garibkayga fadhiyo oo dhalinyarta xaafada u yaqaanaan King CK okay ninkan imuusan dhihin eray iyo laxan ku sameeyna muusan dhihin aniga u tagay gurigiis ugu tag wareystay hay eray iyo laxan u baahanahay samee sidaas darteed uu sameeyay okay waxaan rabaa Cadaawe Kinyo CK waxaan rabaa dhalinyarta xaafada maadaama aad tahay heestii heedna igu dee fankan adiga aad qortay waxaan rabaa macnaha in aad dadkii aad la wadaagto xaqiiqada waxay tahay horta assalaamu calaykum waa salaamay dhalinyarta ku xiran socdaal janaal dal iyo dibad meel kasta joogaan horta magacay waxaa la Cadaawe Kinyo dhalinyarta xaafadana si socdaal noo sheeg waxa la yaqaanaa CK dabcan horta mii macnaha qof oo macnaha abwaan weyn maanta mihi oo heesa badan sameeyo wax badan la xameeya yarkan walaalkii socdaal ayaa wuxuu igu codsaday inaan u sameeyo hees codsiga dartiis ayaa wuxuu ugu tixgeliyay hees aan u sameeyay khaladkan wuxuu ka imaaday meesha Cadaawe Kinyo macnaha magac waa sida dhalinta xaafadii taqaanto CK loo soo qabsaday anaga CK muu naqaan King CK ayuu qanaa aa u naqaan ma garad marka arinta xagaas ka jirta yarka walaalkiina waa socdaal garab uu iga baahday garabna waa siiyay sida ogtiinba ifkaal wiyo walaal ma garad qofka walaalkaaga markuu garab kaaga baahan yahay hadduu garab kaa waayo biri markuu asaga taagan yahay macnaha adin markaa garab uga baahan tahay inuu garab ku siinayo say ku cadeynaya marka socdaal waa nin talent leh wallahi billahi taala xushmad ayaa waa walaalkayga qaaliga waaye ana horta macnaha xamar dad badan ma joogaan laakiin walaalkayga jeclahay xamar aan kasoo dhaweysto isku meel joogno isku guri joogno isku qol deganahay oo markasta farxad isla qaybsano socdaal badan horta jalalkiisa ma kasoo muuqda dad macnaha social media jecelmeeyay marka waxaa leeyahay heestaas waayaa khalad iskala dhacsiinin heestaas CK ma sameynin waxaa sameeyay magacayga waa Cadaawe Kinyo waana ma santii socdaalka wareeg sidaad indiin aad ku arkaysiin King CK heesta ma sameynin hadda la taaganahay King CK heesta ma sameynin waxa sameeyay CK oo la yiraahdo heesta ma sameynin King CK waxa sameeyay Cadaawe Kinyo dhalinyarta xaafadan ay u yaqaanaan CK waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol wax mid kale waxaan raaligelin buuxdo u bixinayaa waxaan raaligelin buuxda macnaha u dirayaa dhalinta Soomaaliyeed waliba youtuberadii reaction soo bixinaya ilaa ay xalay oo dhahayay King CK ayaa heestan sameeyay waxaan leeyahay qaladka adinku ma lihidiin qaladka aniga iska leh oo mashquulay muuqaalkan soo bandhigidiisa aniga la rabay inuu wax kala saaro oo macnaha wixii cadeeyo oo qeexo qaladkoodii kuma lihidiin aniga iska leh qaladka waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol qaabka qurux badan leh oo aad u bixiseen reactionada teeda kale Soomaali waxaan leeyahay all the people Muslim waxaan leeyahay intaan kaga kulmeyno muuqaalka xigo waxaan idin leeyahay waa aniga socdaal channel ah iyo Cadaawe Kinyo oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo